السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي waxaad leenahay soo dhawaada qalbi furan iyo niyad saafi ah waanigoo ah Firdaws Ismaaciil waanigoo ah warsan Sheekh Maxamed janalka daawanaysaana Firdaws Ismaaciil janal had baydin salaamayna dhamaantiin ay Firdaws maxaa haysaa waxaan hayaa warka magaalada ka socda YouTube social media waxyaabo badan ku jiro aad iyo aad runtii marka hore waxaan leenahay walaasheen Faadimo Brambur ilaahiga raxmaan aha hawsa qiro aad iyo anagu program nooma aha program kama dhiganayno laakiin waxaan rabnaa inaan idin xusuusino oo kaliya waxyaalo badan oo waxa jiro nafsadaadu ay diidayso aad iyo aad adduunkana walaal lagu yahay laakiin maanta maxay walaasheen u baahan tahay oo kaliya inaan u duceyno dhaano walaasheen ilaahay hawsa qiro Allah u sahlo Allah u fududeeyo Allah u dhib yareeyo Allah u naxariisto raxmadiisa ilaahay ha siiyo maxaan ku raada qalbigeeda waasac Allah uga dhigo niyad degan Allah siiyo raxmaanka ah waxaan kala walaalayaal idin leeyahay reer YouTube leh hadaan nahay bahda YouTube leh waxa weeye qofka markuu dhasho waarun aabbu ku abtirsadaa waarun aabana wuxuu kaga abtirsadaa qabiil aad iyo aad anagu hadaynu ummadii Soomaaliyeed nahay waarun oo Soomaali ku abtirsatanahay hadana YouTube aan iskugu imaanayo bahdii reer YouTube leh aan nahay oo abtirkeeniba YouTube uu galay oo xagga aanu aadnay waarun oo social media dadka ka muuqday ka hadla la yahay waarun waxa jira waxyaalo qofka bini aadanka naftiisa ay diidayso aad iyo aad taasoo ah walaasheen sawirkeeda la wareejinayo taasaan beenahay runtii nafta way diidaysaa waarun ayadu xitaa way diidaysaa aad iyo aad walow aysan idin soo fariisan karin meesha idin dhihi karin war waxa daaya laakiin wixii oo idin ka xishoonayso ninka waranka kugu dhufta iyo kan kugu gilgilo iyo kan kugu lelejiya keeba daran kan ku lelejiya anagu hadda Soomaali hadana waranka ku lelejinayna gabadhan waa gabadh beerkeedii maqan yahay ma ahan maanta qof walba uu program ka soo dhigan lahaa oo sawirkeeda soo saaran lahaa oo kalibadeeda soo qaadan lahaa anigu waxaan diidanahay waxay tahay sawir loo soo ducayn lahaa sawirka iska badaaya walaalayaal loo soo ducayn lahaa maxaan ku dhahdaay qaybka loogu ducayn lahaa wixii loo tari karayo de wax kale loo tari kara ma ducadaas mooyaane aadiya tan kale Firdawsay waxaan la yaabay oo la yaab igu noqotay sawir badarki ilmo yar baa ku daba dhagan ilmaha xagee ka keenay taro reer YouTube leeyo cunuga Faadimo Brambur ya intuu u tagay soo sawiray waxay la yaabina bisbas baan cunayo ya cunuga Faadimo Brambur ya intuu u tagay soo sawiray sawirka inooga soo anigu dhowr ilmood oo kala waxaan kala nooca hadana kaaga daran war dambiga aad ku sii dhacaysaan baa wax walba ka daran dambiga aad galeysaan baa ka daran waxaad ka heshid iyo wixii waxaad ka helaysid malaha xaraam buu ka noqonayaa waarun fiiri gabadhan ilmo aysan dhalin baad sawirkeeda dhab ku siisay waarun saad u leedahay cunugii Faadimo Brambur ayada daawo mise nin hadla manaka la kaaga soo dhaxbixisa billaah calaykum ilaahay baan idinku dhaariyay waxaas baad aragteen nin boolisa ama naag boolisa cunugii wado yaa waxaas dhigay midha cunugii la sii qaadaya taabo mise kii program ka watay baba kaaga soo boodahayo wallahi dibkeeda war waxaadan ogeyn wad marqaati ka ahayn odayndahaada ku haynin ha ku dambaabin aad iyo aad adigu wixii dambi ka soo gaaray walaalkay ka fakar walaashay waxa dambi ka soo gaaray ka fakar aad iyo aad gabadhan waa walaasheen duco kaliya gabadh walaasheen waa ina fiidiyoyadeeda iyo sawiradeeda iska daaya inooga ma baahna maanta ilmaha yarkeed ku daba wadaan ee keediba aan ahayn ee kala nooca ah ee kala hatta isku midab ma aha qaarkood waa kala midab shaqada isku male ilma adeerayaalo ilaahay khayriyo ka daaya u duceeyo idinkoon sawirana soo qaadan waxna soo qaadan u duceeyo aad iyo aad war u duceey war ilaahay u bari waarun in walaasha ilaahay u saqiro aad iyo aad laakiin ilmaha yarkeed ku daba wadaan
iyo sawirkeedii aad isku daba wadaan innagina qalbigii qaacbuun dhahaya mar walboon sawirkeedii aragno wallaahi alcadiim maxaa soo kordhay baa isdhahaa wax soo kordhay male halkii baa la taagay culimadaas usoo ducaysay ilaahay ka abaalmariyo ilaahaygi raxmaan ahaa sheekhyadoo dhan dhammaantood ilaahay ka abaalmariyo culimadu inay usoo duceeyaan weeyaan waalidkana usoo duceeyaan weeyaan aad iyo aad ma ahana maanta dhan laga dhigto iyadii business laga dhigto maanta dhan la wado oo waxaan waxba kama faa'iidaysid faadmo brambur meel kasta dhac kusi waa un intii un anagu ducaan u ahaynaa oo keliya waan u duceynaynaa wallaahi alcadiim waan isku dayay inaan brambur u sameeyo oo aan ugu duceeyo horbaa ugu duceeyey oo aan brambur duco ah u mariyey haddana waxaan leeyahay walaashay allah raxmaanka ha kuu saqiro sababtay tahay waxaa i cajabiyeyba waxaan sawiradan baa maskaxdaydii dawaqiyaba fajac bay igu noqotay meeshiba haddaad furtidba sawirkiibaa sawirkiibaa boodayo facebook haddaad furtid waa sawirkii tiktok haddaad furtid waa sawirkii ilaahay aanu ka xishoona ilaahay iyadana waxaan uga ilaahay uga xishooda gabadhan walaasheeda iyo dulqaadkeeda ay muujisay inuu ilaahay ugu gargaaro inuu ilaahay gacanta cadowga uga soo bixiyo ilmaheedii waa saqiir yar kulli saqiir yar dambi ilmaha dhan ayada ilmaha taanka kulli ilaahay uga soo wada qaado inay umushana loo sheegay dadka qaar waxay leeyihin gabar bay dhashay dadka qaar waxay leeyihin wiil bay dhashay waxay dhashay wallaahi xataa warka ma hayno ilaahay waxaa uga baryaynaa iyadii ilmaheedaas inuu caafimaad ugu soo celiyo anigaygan baa waxaan isdhahaa talow maxaa soo kordhay maxaad umalan qofkii la haystay maxaad umalaysaa ilaahay baan kugu dhaariyey anigaygan baa waxaan isdhahaa talow maxaa soo kordhay bal fiiri war soomaaliya maydaan dad dhig lahayn maydaan dad ilaahay ka baqay ahayn maydaan dad innaba naxariista maydaan ahayn war social media ayaanan ku ceeboobin caadi wallahi si xun baan u fahanay wallaahi social media waanu ku ceeboobaynaa kii sheekh ahaa iyo kii kastaaba sawirkiibu soo saaran meesha masaylad baa xoolo la gadanayo oo maseel baa ka jiro seel baa ka jiro ha wallaahi bilaah gabadhaas faraha laga qaado ha loo duceeyo qofku wuxu tarayo adoo gurigaaga joogtid 2 ragcadood u ducee ilaahay u bare ilmuhu waa ilmahaaga oo kale adigu haddaad gacmaha ilaahay u taago hooyo haddaad tahay waa adigoo kale haddee hooyo ku dhashina waa hooyadaayoo kale nacam haddee walaal kula dhashina walaashaayoo kale waa gabarh soomaaliyeed waa gabadh dhiiggeenna waa gabarh dadkeenna ah waa gabadh yacni communitygeenna ah meelba ina xanuunaysa meelba ina xanuunaysa waan ka naxaynaa waa walaasheen waa aragtay soomaali dad yaroo waxaynu nahay hal meel ka wada imaaday inaan isku naxno oon isku naxariisano oon ilaahay isu barino iska dhaaf soomaalinimo dadka qof islaam ood aragtid la dhibayaad si ka noqonaysaa ma ahan idinkuna inaad madaxa sii washo oo hurda la-aanaad ku ridiin oo laga yaabo iyadoo iska fadhido oo iskaba dee ducaysan lahaydba inuu marba qof soo saarnaado ama soo waco ama waxaad arkaysaa naag booliiso cunug saa ugu raran oo sii jiidanaysa anigu waan aad baan u fiiriyey cunugan talama cunugiiba goormaa boolisku jiidanayo laga soo sawiray waxaan la yaabay bay igu noqotay qofka intuu u tagay cunugaa yar intuu soo sawiray social media noo soo geliyey ma jirto waa wax feegoo la iska samaysanayo ma jirto qofna intuu dul tagay faadimo brambur ma soo sawirin cunugeedana ma soo sawiranine ilma adeerayaalow ilaahay intaad ka xishootaan ilaahay dartii gabadha uga xishooda ilaahay dartii uga xishooda oo ka cabsada ilaahaygii raxmaan ahaa uga cabsada oo muslimka uga cabsada oo islaamnimadiina uga cabsada ha ishallaynina idinku oo aakhiradiina u cabsada ha ishallaynina idinku saban aakhir buu noqdo waad la yaaysaa mucjisee noqda dadkii haddana waxaan social media fidnooba noqdayba wax fidno oo lasii faafinayo hadda wanaag ma taraysiin qof kasta oo sawirkeeda soo qaata ama kilibadeeda soo qaata wanaag ma tarayo ilaa xumaan iyo inuu qalbigeeda sii huriyo mooyaane wanaag ma tarayo wanaaga meeshaa oolin wax wanaaga meeshaa ma yaalo marka walaasheen waxaan ugu soo gabagabaynaynaa ilaahay qalbigaaga walaal ha kuu hagaajiyo ilaahu aamiin ilaahay qalbigaaga ha kuu adkeeyo ilaahu aamiin awlaadaada allah ha kuu soo celiyo ilaahu aamiin ilaahay iimaankaaga ha kuu sugo allahumma aamiin ducayso walaal oo iimaankaaga ku sugnow cibaadayso ilaahay bari kala baryaa waa ilaahay
ka gacantiisa wax kasta ku jiraan allaahuma qallib alquluub ka yacnihii dadka quluubtooda bedela calaa diin yacnaa ilaahayga qalbiyada rogrogo haa oo gaaladaas qalbigooda isagaa ilaahay gacanta ku haya adiga isagaa ilaahay gacanta kugu haya ilaahay iyagu qalbiyadooda soo bedeli karaa uu ilaahay ilmaha kaaga soo qaadi karaa ilaahay waxaan kaaga baryanaa inaad ilmahaagii iyo adigoo isku nabad qabtinaas heshiin ilaahay idankii biidni illaahi oo maskaxdaada iyo samarkaaga iyo iimaankaaga ilaahay kugu gargaaro adkaysi muuji alla ku xidhnaan muuji ilaahay waxaan kaaga baryeynaa inuu ilaahay garabkaaga galo allahuma aamiin allahuma aamiin insha allah maxaad ugu soo gabagabayn leed adigana maxaan ugu soo gabagabaynayaa walaashay ilaahay qalbigeeda ha u dejiyo iimaanka ay haysato iyo sida ay tahay ilaahay ha u siyaadiyo farxadeedoo kaamila ilaahay hana tuso isagaa raxmaanahe allah raxmaanka waxaan uga baryaynaa farxadeedoo kaamila inuu ilaahay siiyo qalbigeeda inuu ilaahay u dejiyo caafimaad sareecana badankeeda ilaahay u geliyo caqligeeda ilaahay taam uga dhigo cimrigeeda ilaahay u dheereeyo awlaadeeda xufaad ilaahay uga dhigo awlaadeeda kuga xafido ayada oo dib u xafida ayada ilaahay uga dhigo ilaahaygii raxmaan ahaa ha soo xafido ha soo uruuriyo gurigooda oo nabadana ilaahay ha keeno intaasaan kusoo gabagabeynayna yaa rabbi ilaahay waxaan kaaga barina ducadeeda ilaahay u aqbalo wax kale oo aan Soomaaliya idinkuna maalintay dhibaata idinka maqan tahay maalintay dhibaata idinka qofkay dhibaata ka maqan tahayo khayrkaabay haysataa adiguna ha ismood inaad berri wax kasta ka tahay ilaahay u noqo ilaahay ka baq waxaan wax lagu raadinna waxba ha ku raadinina insha allah biidni illahi raxmaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anagoo ah tiim guul iyo gobonimo aad baan idiin salaameynaa